shirgudoonkaas gabar ka mid ah ayaan dhageystay muuqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodaysaa waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in waxaynu xataa ku afka soo marin karanaba maaha in dadka ragga iyo dumarku guurkii aynu naqaanay inta laga guuro iyagu wax isu doontaan wax caalamul galbeed laga keenay ama dhaqankan galbeedka iyo gaalada laga soo waariday marka gabadhaasi waxay leedahay dadkii haddii aadna ilaalin weydaan oo iyadoo marmarsiya ka dhiganaysa diintii iyo culimadii marmarsiya ka dhiganaysa waxay leedahay waa la wada gaaloobaya oo sidanaa la noqonaya oo aakhirkana waxay leedahay haddaan xeerkaa jinsiga meel marin waayo muqdisho way iskaga tegaya waa arrin runtii qof kastoo islaama argagax gelinaysa oo naxdin leh arrintaasaan doonayaa maanta inaan kelmad ka idhaahdo inantaa waxaan ku odhan lahaa horta ilaahay u soo noqo ummaddani waa ummad islaama ummad waxaasi ka suuro gelayaan maaha waxaan ku xusuusin lahaa gabadh iyana wasiir ahayd oo kaa horraysay oo weliba gabadha aqoon baan u lahaa inay xeerkan keentay baarlamaankii hore laakiin laga diiday waxaan aad u hambalyaynayaa ugu bogaadinayaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee la odhan jiray muuday oo si fiican oo diiniya oo dadnimo leh uga hadlay arrintaa hore oo isu hortaagay isaga iyo aqalkiisii hore ee shacabkii hore ee baarlamaankii horeba ay u diideen waa ku bogaadinayaa runtii soomaalida odhan jirtay meel aar ka kacay atoor fadhfadhiisay gabadhan maanta hadashay waxaan leeyahay annagoo weliba ku nasteexaynayna arrintaasi suuro geli mayso dad islaama baanu nahay dad dhaqan leh baanu nahay dad waxaasi ka suuro gelayaan ma nihin adiguna ka noqo adiga iyo cidda mashruuca ku soo siisay midna u suurto geli mayso inantaa intaasaan leeyahay 3 qolona fariimaan u dirayaayoo mid waa madaxweynaha xasan sheekh dee madaxweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaal dhawaa ku jirtaana weji islaamiya u dhigaysaan halkanna waxaanaa ka socda oo tii halkii ugu dambaysaya dee bal dib isugu noqdo oo arrimahan hoosu eega oo madaxweyne arrintaa mas-uuliyaddeedu aday ku hoos imanaysaa ee wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalkaa lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxaa leeyahay nin baa beri lagu yidhi inantii heblaa kuu soo heestay wallaahi wuxuu yidhi inantaa ii heestay lama yaabaniye ragga u heehaa lahaa ayaan la yaabanahay buu yidhi golihiinna shacabka waa wada qabtaan arrintan waa shirgudoonkiinnii waxaan samaynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dembigani ku dhacaya arrintaa baarlamaanow ama golaha shacabkow ceebtaa idin dultaalla iska dulqaada oo golihii idinka horreeyey sidaa aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tegaye ceeb ha kaga tegina idinku qolada saddexaad aan la hadlayana waa puntland oo inantani ka soo jeedo dee reer puntlandow idinka lafdiinu arrintu way idin soo gelaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexaddeedu way idin soo gelaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama marka dumarka xuquuqdooda meel baa lagaga dhacaya marka waxaa la shubayo dhaqanka soomaalida dumarku waa cidda ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta intaasoo taariikhood baa dumarku leeyihiin inan sidaa loo eegay baa laba reer isugu rogmadaa soomaalida waxaaba lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay bal maamaada xaggaad ka dhaafi gabadhay markaad leedahay xuquuq baa iga maqan nin waa maxay baa leeyahy gebigiisuba waa inta gabadh ka soo hadhay baa leeyahy waa hambo gabadh ka soo hadhay dhaqanka soomaalida xuquuq dumar ka maqani ma jirtee qarribaad baa ka maqanoo nin reerkiisii iyo qoyskiisii rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaarankaygu waxa weeye waxaa ka noqo kuu suurto geli mayso waxaan ceebahayna kala tegi maysad haddaad kusii adkaysato fariinteeda kalena waxaan u dirayaa oo muhima culimada muqdisho ama guud ahaan soomaaliyaba dee arrintan waa arrin diiniya dee inay ka hadlaan oo inay gabadaan maaha inay ka gabadaan maaha
waa inay ka hadlaan culimada aad u dhiiranaya had iyo jeer aan bogaadiyaa waa culimada Nairobi joogta sida Sheekh Umar oo kale culimada kale ee Soomaaliyeedna waa in arrinta ka hadlaan khaasatan kuwa Muqdisho ee ay meeshooda ka